Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi xubnaha golaha wasiirada madaxda kale ee qaranka hay'adaha caalamiga ah diblomaasiyiinta saraakiisha qaranka warbaahinta dhammaan aqoon-yahanka forumkan ka soo qayb galay dhamaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh runtii farxad bay inoo tahay inaynu maanta Somaliland aynu daahfurno kulan aynu kaga hadlayno dhaqaalaheena oo aqoon-yahankii reer Somaliland intoodii badnayd ee aqoonta u lahayd dhaqaalaha iyo hay'adihii xukuumadda ay khuseysay ay ka soo qayb galaan waxaan rajaynaynaa mudane madaxweyne inuu forumkani u noqon doono barbilow dhaqaalaheena inaynu ku daraasayno caqabadaha hortaagan kobciisa lagana soo saari doono qorshayaal cadcad oo aynu ku xalino mashaakilaadkeena hor yaalla anigu waxaan kelmad yar ka oran lahaa presentationkii imika amba daraasadii baanka dhexe sameeyey iyo xiriirka ka dhaxaynaya forumkeena mudane madaxweyne suuqii waahayn gubashadiisa uma arkayno inuu ahaa musiibo inugu dhacday waxaynu u arkanaa inuu ahaa faraj Ilaahay inoo soo diray oo aynu dib ugu eegayno dhaqaalaheena iyo qaabku yaallo waxaan oran karaa baanka dhexe wuxuu si aad u dhow la shaqeynayay gudiyadii kala duwanaa ee ka shaqeynayay suuqii waahayn wuxuu qabashadiisa aba wax ka qabashadiisa gudidii heer qaran ee madaxweynuhu magacaabay iyo gudidii ganacsatada iyo gudiyadii kala duwanaa haday tahay gudidii suuqa waahayn iyo haday tahay dawladda hoose Hargeysaba waxaan qabaa mashruuc ka transparency ma soo marin Somaliland xaqiiqada marka laga hadlo daraasada waxa presentationkii dhaweyd ku arkayseen dad 3,000 oo qof gaaraya in lacag loo qaybiyay oo lacagta loo mariyay baanka dhexe Jamhuuriyadda Somaliland wali mayna arag mudane madaxweyne qof cabanaya oo le wixii la igu tala galay imay soo gaarin qof qaatay waxaanu xaq u lahayn mayna arag taa macnaheedu waxay ku tusaysaa gudidii heer qaran ee madaxweynuhu saaray iyo gudiyadii kale ee iyaguna haday tahay gudidii ganacsatada iyo haday tahay gudiyadii kale ee dawladda hoose la shaqeynayay iyo gudida heer qaranba inay hawl aad iyo aad u weyn qabteen maxaynu ka baran karnaa marka dabcan gubashadii suuqa waahayn saameyn taban uu ku leeyahay dhaqaalaheena oo waa tii la sheegay waxaana rajaynayaa inuu ka mid noqonayo challengeska iyo caqabadaha in hor yaalla ee loo baahan yahay forumkan in xulushiisa laga soo saaro qaabkii suuqyadeenu u yaallaan suuqii waahayn dhibaatadiisii lama wada xallin laakiin fayskii hore wuxuu noqday fays aad iyo aad aynu ugu guulaysanay isla habeenkii madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland oo gudida magacaabay heer qaran qaadaankii uu horeeyana ku yaboohay shacabka reer Somaliland gudahiye dibadba cid aan ka qayb qaadan male ardayda iskuulada iyo jaamacadaha dhigta ilaa ciidanka qaranka ganacsatada waaweyn jaamacadaha qurbajooga bulshadeena cid aan ka qayb qaadan male taas waxayna tusaysaa wax kasta oo aynu u kacno oo aynu gacmaha isku qabsanaa inuu guuleysanayo ma yara ganacsiga ku gubtay suuqii waahayn $70 ayaa ka mid ahaa ganacsatada ku ganacsanaya qofka ugu hooseeya qofka ugu sarreeyana $2 milyan buu ahaa inta ganacsiga u dhaxeeya ma yara ee 50 sano soo kobcay dhaqaalaheena kaliya ma aha dhaqaalaha regionka ee dhaqaalaheena ku xidhan buu waxyeelay marka waxaan ku soo gabagabeynayaa hadalkayga oo forumkan runtii uu ka khuseeya suuqa waahayn inaynu xulul waara ka yeelano ganacsigeenu qaabka u yaallo oo la falanqeeyo inuu ganacsigeenu aanu sidaa mar kaliya inooga besbeeline oo noqdo ganacsi haddii dhibaato meel ka soo gaadho sii shaqayn kara oo sii socon kara
waxaa kaloo soo jeedinayaa suuqii waaheen fayskii hore unbaa dhammaaday qorshaha guddida heer qaran hore inoola wadaagtay waxaa ka mid ahaa in ganacsatadii hantidoodu wax ku noqotay ee dhismayaashoodana dibudhiskana in 45% laga bixin doono oo laga qayb qaadan doono halka 55 iyagu ay keeni doonaan intii dawladdu lahaydna la dhisi doono sida ugu dhaqso badan marka waxaan ku soo gabagabeynayaa waxaan shirkeena ka rajaynayaa inuu noqdo madal ay ka soo bixi doonaan qorshayaal cadcad oo kobcin doona dhaqaalaheena amba wax ka bedeli doona qaabkaynu u ganacsano caqabado badan oo in hor yaalana mid gudaha iyo mid dibadeedna sidii xuluul ugu heli lahaa aad iyo aad oo mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh